Assalaamu calaykum. Soo dhawow daawade waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeenan waxa aan si kooban u faahfaahin doonaa gubashada keymaha Amazon. Keyma roobleyda Amazon waa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda badan dunida. Keynta Amazon waa keynta ugu ballaaran dunida. Waxa ay soo saartaa 20% oksijiinta adduunka. Waxa ku nool 10% noocyada kala duwan ee noolayaasha dunida. Amazon waxa ku yaala in ka badan 16,000 geedaha noocyadoodii kala duwan. Sidoo kale waxa ku yaala ku dhawaad 40,000 oo dhirta noocyadeeda ah. Waxa kale oo ku nool 2,800 oo malay nooc walba leh iyo 1,300 noocyo kala duwan oo shimbiro ah. Laga soo bilaabo sanadkan bilowgiisa waxa la ogaaday in uu dab ka kacay in ku dhow 74,000 oo jeer. Waana 83% sare u kaca uu sameeyay dabka tan iyo 2018. Dabkan hadda ka kacay waa uu ka weyn yahay midka aan soo sheegnay. Qiiqa uu sameeyay dabka ka kacay Amazon waxa laga arki karaa hawada sare. Sidoo kale meelaha qaar ee ka durugsan Amazon waa laga arki karaa qiiqa. Qiiqa ka baxay dabkan waxa uu isku gadaamay qoraxda. Sida laga soo xiganaya cilmi baarayaal caalami ah, waxa ay sheegeen in uu dabka sababtiisu leeyahay isbedelada cimilada. Haddii ay hogaamiyayaasheena tallaabo qaadin hadda, jiilka mustaqbalka imaan doona dunida waxay u noqon doontaa meel cadaab ah oo waxa ku adkaan doonta inay ku noolaadaan.